asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu soo dhowaada asxaabta waa maxay sheega ugu horreeya maskaxdaada ku soo dhacayo markaad geshid maqaayadaha ku yaala bariga aasiya ama jeenaha waa iska caddahay waa labada ulood ay wax ku cunaan haddaba ma isweydiisay arrinka ku qasbaayo inay ku cunaan labada ulood oo aysan ku cunaynin sheeyadan anagu ku cunno cuntada sida qaandhada iyo gacantaba haddaba maxay ka wadaani arrinkaasi ma isla weyne baa ku jirto mise arrimo kale ayaaba ku hoos joogaan labadaas ulood haddaba intaasoo dhan waxaan ku ogaan doonaa muuqaalkeena haddaba ku soo dhowaada muuqaalka ulaha cuntada ay u adeegsadaan kuma eko in ay yihiin ula caadi ah balse waa ulu ku dhisan falsafad midaasoo muujinayso dhaqamadii hore ee jeeneeska balse waxaa laga isticmaalaa bariga aasiya laakiin asalkeedu waxay ka timaaday jeeneeskii hore waxayna arrinkaas soo bilaabatay 3,000 oo sano ka hor falsafadan in lagu cuno cuntada laba ulood waxay muujinaysaa in ay yihiin shacab ammaan ah oo aan jeclaynin dhibaatada intaas kadib cuntada in lagu cuno laba ulood arrinkaasi waxaa ka dambeeyey faylisuufka lagu magacaabo Confucius waana faylisuufka ay aad ku jecel yihiin jeeneeska waxayna ahaayeen kuwo ixtiraama hadalkiisa iyo afkaartiisa wuxuuna yidhi ma ila fiicno inaan cuntada ku cuno gacanteena ama si toosaan u gelino gacanteena wuxuuna yidhi waxaa kaloo jira dowladan uga hareeraysan kuwaasoo cuntada ku cunaan qaadooyin iyo fargeedooyin balse qaadooyinkaas iyo fargeedooyinkaas waxay u muuqdaan aaladaha lagu dagaalamo mana ahan kuwo u qalmo in lagu cuno cuntada arrinka halkaas markuu marayay shacabka waxay dhaheen maxaan sameynaa oon ku beddelanaa wuxuu yidhi sheygaan isticmaalayna waa inuusan ahaynin mid ka samaysan bir ama wax adag waana inuu ahaadaa mid ka samaysan loox weliba midka loo yaqaano kaysaraan waana inay ahaataa mid ku fiican qabsashada dhirirkeeduna uu yahay mid wanaagsan ugu dambayntii waxa ay noqotay labadan ulood oo ay hadda wax ku cunaan intaas kadib hadalka faylisuufku wuxuu noqday mid ay ku qanceen shacabka jeeneeska waxaana bilowday in dad badan ay soo jiidato fikradda faylisuufka waxayna noqotay fikraddan mid sii faaftay jiilka jiil ugu dambayntii isticmaalka qaadooyinka waxay noqday mid ay iska joojiyaan jeeneeska waxayna u fahmeen in ay tahay arrin aan wanaagsanaynin oo laga fiican yahay sidaas awgeed ulahan ay wax ku cunaan waxay u samaysteen shuruudo iyo hab gooni ah midaasoo loogu isticmaalo waxayna kala yihiin sida tan ugu horreyn qofka raashinka samaynaya waa inuu u jarjaraa cuntada qaab yaryar sida hilibka malaayga qudaarta iyo dhammaan cuntada si hadhowda ay ugu fududaato qofka cuntada cunayo in uu ku qabsado ulaha oo aysan ugu adkaanin qaadashada waana arrinka ku qasbayo inay cuntada ka dhigaan qaab yaryar oo kooban waana sababtii haddii aad geshid maqaayadaha ku yaala bariga aasiya ama jeenaha ay adag tahay inaad aragtid jeex weyn oo hilib ah ama lug doora ah sidaas ay tahana waana kuwo ku qanacsan inay cuntada ku cunaan sidaasi waxaa kaloo qalad ah inaad kala furto ulaha adigoo kor u hayo waxayna u arkin ay tahay arrin xun waana inaad ku hadisaa cuntada kadibna aad isticmaashaa intaasna waxay sii raacayaan haddii aad gacanta ku haysid ulaha lama hadli kartid qof waa inaad horta iska dhigtaa ulaha taasoo caddaynayso inaad joojisay cuntada markaasina waad hadli kartaa waxaa kaloo qalad ah inaad ulaha u qabsatid sida mindida oo kale taasina waxay muujinaysaa cadaawad ama qof weerar galayo waana sida uu sheegay faylisuufka Confucius marka cuntada dhamaysatidna waa inaad ulaha cuntada kula walwalaaqin waxaana mamnuuca inaad jibsid ulaha oo ku durtid qashinka marka aad dhamaysid waa inaad dhigtaa weelka korkiisa marka sidaas aad samaysidna waxaa kuu imaanaya weytarka waxaa kaloo ogaataa in 30% dadka ku nool caalamkan in ay cuntada ku cunaan ulaha sida Jeynaha, Jabaan, Vietnam, Kuuriya iyo weliba Taiwan iyo magaalooyin kale sida Nepal waxay cuntada ku cunaan labadan ulood intaas kadib Jeynaha kaligooda sanadkii waxay isticmaalaan ku dhawaad 45 milyan oo ah ulahan cuntada lagu cuno waxaad ogaataa oo kale in la sameeyo ulahan in ay ka mid tahay shayada ugu muhiimsan ee la sameeyo markii la jooga bariga aasiya habka loo sameeyo iyo sida loo naqshadeeyo waa mid kala duwan waana kuwa lagu kala fahmayo waddanka ay ka soo jeedaan tusaale ahaan ulaha ay isticmaalaan jeeneeska waa kuwa dhaadheer oo madaxooda u muuqdo mid afaysan waana mid ku samaysan qashab ama balaastiig kuwa Jabaanna waa kuwo ka samaysan looxa waxaana la mariyaarin jiray midabo kala duwan mararka qaarkoodna waxaa laga sameeyaa dahab ama qalin laakiin kuwaasi waxaa isticmaalaan taajiriinta laakiin markii la joogo Kuuriya ulaha ay isticmaalaan waa kuwo madaxooda u afaysnaynin waxayna sidaas ugu samaysteen si ay ugu fududaato qabsashada cuntada intaas kadib waxaan rajaynayaa inaad fahantay sababta ay jeeneesku ama dadka ku nool bariga aasiya ay badarka ugu cunaan labadan ulood in ay tahay mid ay u leeyihiin dhaqan iyo caado oo aysan ugu ahaynin
ula iska caadi ah. Haatana waxaan soo gaarnay dhammaadka fiidiyowga. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, like dheh. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channelka subscribe dheh. Muuqaalkana la wadaag asxaabtaada si walaalo kale u gaaro muuqaalka. Intaan muuqaalkiisa kale ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay maca salaama.